بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتي كصاب سنة وربحين يا عافماتك يا هولو حينو شيغي وزارة عافماتك يا وزير هذا انت نهدرك قالي هورتا markii aanu magaalada soo galnay waxaan loo sheegay geeri culus oo magaalada ku dhacday Professor Muuse Umar Galde oo geeriyooday isagoo shalay galabtii waan soo wada shalay afurkiinu caafimaad qabay oo caafimaad qabko casheeyay suxuurtii la qabtay oo geeriyooday geerida waxa sii cusleeyay sana loo waramay in gabadhiisii oo uur lahayd ay la mataana umbushay iyadoo halkii sariir jiifta loo sheegay inuu abeed geeriyooday iyadina naxdintii kooma gashay iyana hadeer gooday bilowday oo labada mataana ka tagtay geerida culus iyaga Ilaahay uu naxariisto wixii muslimka horeeyna Ilaahay uu naxariisto inagana Ilaahay nooga daba naxariisto qoyskiina Ilaahay awir khayr qaba Ilaahay isaga xigmadiisa badane qoyskii hawsha ku dhacday labada geeriyooday Ilaahay awir khayr qaba siiyo waxa kale oo tacsida raacin oo inta halkan fadhiyo warkiisuna soo gaaray Suldaan Ismaaciil Suldaan Aadan oo kamid ah odayaasha salaadiinta Hargeysa oo isna imika geeriyooday sida haddana intaan fadhiyno loo sheegay isagana Ilaahay uu naxariisto qaranka iyo ehelkiisina waa tacsida uga direynaa Ilaahay jannadii firdawso ka waraabiyo isagana tacsida kadib hawshan aanu ma gurmadka laba qodob aan ka oran mid waxa weey dad baa ka faalay wasiiradii iyo gudoomiye maxay inta dhanba isu raacda waxa la isu raacaa mar haddii wuxuu gurma tahay waxa la isu raacayaa in meesha dhibaato jirta go'aankeeda ciddii qaadan karaysa ay wada joogto mar qolo go'aanka la qaato maaliyadii madaxtooyadii iyo caafimaadkii wasiirka tacliintu ilaa burcawna la socda muxuu noola socdaa waa waqti imtixaanada qaranka oo dhan ardayda imtixaan bay fariisan lahayd cudurkana waa jiraa wuxuu leeyahay go'aanka maxaynu ka yeelaa ardayda ma la isu keeni karaa mise la isu keeni karo imtixaanada wargeli karaa iyadoo lala tashanayo wasaaradda caafimaadka wasiirada kale ee gobolka deegaanka waxay u yimaadeen inay xoogaal ka noqdaan kana hawl galaan wacyigelinta iyo dadku waxay tabanayaan gobolkoodu oo ay ka gaaraan go'aan goobta wixii loo baahay intaas waa wada socodkayga waxaanu gaarayno waanu ku guuleysano goob walba wixii go'aan loo baahanaa burco wajaale iyo halkan waa qaadan xukuumadda wasiirada lagu ammaan maayo waayo waa xilka qaranka oo hayaan waajibkoodii bay guteen ilaahayna waa kala aakhirana waa laga xisaabtamayaa ilaahooda kala xisaabtamaya inagu iyo ummaduna waa kula xisaabtamaysaa waa daba joognaa annagoo xisbiga aan taageerayaashii kulmiyo dhan baaba horta daba joogo leh war maxaa qabateen waa inaan markhaati ka ahna waxay qabanayaan inagu markhaati furan baynu u leeyahay waajibka ay qabtaana waa ku ammaanaynaa hadday dhalin la timaadana waa ku qabanaynaa taasina waxaanu ka maragnahay siday u gurmadeen iyo tirada caafimaadka noo soo gudbiyey inay xukuumaddu iyadoo isku duuban hawsha biyanshiboodka hawl boqolkiiba boqolo gurmada oo ummaduna ku bogaadso ilaahayna ka jaaysiya ay guteen ilaahayna nagu gargaarona ka hortagnay qodobka iyo xiga waxaanu tacsideynaa waxa le wixii ay naga dilay shoombiyoodku dadka shoombiyoodku dilo waa shuhada baa layidhi iyaga iyo kuwa badul qadaba waa shuhada ilaahay iyagana u naxariisto dadkoodina samariya wanaalanka siya qarankaba ilaahayna hay naga dulqaado cudurka inagu itaal badan oo iskaga celin malihine ilaahay baynu baryaynaa inuu soo abaartii nooga dulqaaday kana inaga dulqaado inaga maxaa nala waajiba dhib kasta oo dhacda waa imtixaan abaar baa shalay jirtay way soo noqon doontaa weliba abaareen imika 3 sano ayaaba gaarin berger 10 sano ahay 4 sano way soo noqdaa xanuunka iyo caafimaadku waa walaalo way isla socdana waa meerto nolosha ku dhisan dhalashada iyo geeridu waa mataana waa meerto midna waa dhimanaya midna uu dhalanaya waxay ka mid tahay imtixaanaadka nolosha Ilaahay bini'aadmiga ugu talagalay marka waxaynu waajibaa dhibta ina soo marta inaynu cashar ka qaadano oo inu u diyaar garowno war baritana way soo noqonay maxaanu ka yeelaa hadday abaar tahay iyo hadday cudur tahay maanta shoobiyoodka wuxuuna baray kolka hore sida loo gurmanayo sida loo xakamaynayo maxaa laga qabanayaa casharro badan oo inaan badankeenu aqoonin ayay Ilaahay ka raali noqdo ka abalmay dhakhaatiirtuna bare waxa kale oo ina bareen dadkeena ayaa u mudan xafladan maanta haddii cid la bogaadinayo iyo haddii cid protocol la siinayo
horta caafimaadka guud ahaan leh caafimaadku wuu sii kala leeyahay aniga waxa ila tahay waxa maanta mudnaanta ugu weyn leh oo xanuunkeena ina baray oo ummadda qadarin ka mudan iyo xishmad dhakhaatiirta kuwa ugu yaryar neersta ka bilow qolada cusbitaalka xaadha ka bilow kuwa bukaanka gacanta kula jira ka aho bal waxaad qiyaasaan intaan halkaa fadhiyaan markaynu dhakhtarka soo gelin horta wada baqanayna qaar way wisuusan yihiin qaar ma soo galaan marka la yidhaha halkii waxaa la gelayaa qolada shubanka dadka qaarba midba dib u hadhaa xataa inay qofka u dhowaadaan ma ogola bal waxaad ka warantaan inanka yar ee 20 jirka ah ee imika ka soo baxay caafimaadka ama inanta yar ee 20 jirka ah ama kaba yarba ama qofka kale ee dumara ee waayeela ee intay saxarada gacanta la galaan qofka buka isaga ka maydhaya ee nidaaminaya ee qashinka qaadaya iyo ka gubaya ka mas'uusha xaaraya bal ka warrama maana geesiyaal qaran ahayn miyana sharaf iyo qadarin naga mudnay waanu baranay maantana kun ku baranay waxaan u baahannahay inaynu caafimaadkeena xoojino wax badan horo dhakhaatiirta aqoonta u leh ee kaa faraha la gelaya inuu ka badbaado aqoonta u leh ee keena u tagaya inuu ka badbaado aqoonta u leh ee dawada loo baahan yahay aqoonta u leh ee caalamka inoola xidhiidhaya farta caafimaadka la garanay ku qoraya ee kaliitiye ka kala hormarinaya ee ay maanta haddii la badbaadada kun ka qof 8 qof ka dhinteen 970 kaas miyaanay ahayn geesiyaal qaran dad xusuus mudan dad ixtiraam ma ahayn taasi waxayna faraysaa inaynu dhammaanteen caafimaadka miisaanka uu leeyahay siino inaynu dhakhaatiir badan tababaro inaynu dugsiyo badan caafimaad furro inaynu miisaan samayno college-ka si ay nolosheenu badbaado sida meelo kala badan ay nooga baahan yihiin dhakhtarku wuxuu nooga baahan yahay iyo naaristo salaan iyo fadhigoon uu kacnaada inaan kala tarin waayo hawsha inta laga bayno qabteen oo inaan dhammaanteen qaban karin sidaa darteed waxaan u baahnaa mustaqbalka tala galno inaan caafimaadkeenu kor qaado oo goob wal oo dalkeenaba haddaynu maalin quraqaadka iska daysa boorame 20 ambulance bay iibin kartaa meel walba MCH baan ku dhislahay maanta uma inaan daydan mushaarada keena haddaynu qaadka maalin iska dayno boorame kali iyo magaalo waliba inta qaadka iyo kharashka naga baxsan bala macna weyn u duwi karaa waa inay noqotaa 10 aynu ka baranno oo martax ku qoro inta waxaan uga gudbi samsamiyo kaamilkan hadalnay iyo wasiirkeedu waxay go'aan gaareen shawara waxa ka codsateen baalkeen ambulance baa loo baahan yahay maadaama tuulaashu walaal la gaarin imika waxay go'aan gaareen in kiina la soo diro maalmaha soo socda ambulance anigu waxaan wada xisbi ahaan dadka kulmiye taageerashada ayaanu ugu baaqnaa dhibaatooyinka jira haday abaar tahay iyo haday caafimaad tahay maanta boorama waxa halka ugu mudan baa leeyahay loo baahan yahay waxa jira markuu shuban biyoodki bilaabmay xajmi shaqaale wasaaradda caafimaadka gobolka way kooweenaad dad baa gurmad qoray dhalinyaro iyo waayeel baa ka shaqeeya dadkaasi miisaanada mushaharada kuma jirin kuna baahay iyo mushaar iyo hawlo yar oo kale markii aanu waraysanay wasaaradda caafimaadka waxaanu xisbi ahaan dadkii kulmiye aanu idinka sidaa meel kasta baa joogana $30,000 oo lagu maamulayo bunada dadka caafimaadka gurmadka ugu shaqeynaya iyo wixii kale hawlo baahay arintuna soo noqoshada dambe kasbana wahay oo laba saddex shaqo hor la soo haray qayraantan marka taasina hadda la idinku wareejinayaa si arintaasi bal inta gurmadka loo xoog leemanayo ay gaadho waxaan ku celcelinayaa waxaan ku nuxnuuxsanayaa war wax waynu qabsan karaa mana dhaqaale liin ma aha markay wax dhacaan inaynu harashada abaar baahida caalamkoona soo gaara roobkii u horeeyay dad inaga laayo in marka qof inaga xanuusa ama dhaxdhoocaan aynu qaloolana soo gaara waar dadkaynu baryeena oo isku mid baynu nahay 9 bilood bay ku dhasheen dhulkeenu ku nool waa kale ku nool yihiin aqli iyo tamar bay waxooda ku qabsadeen lacagta loo uriyana waa sadaqad wax kala maaha kiniisaha laga soo uriya dariiqda la istaaga markaas ay hay'adaha safe children iyo hu iyo qoladan la qayrta casiya bisha caso imika dadaala iyo dad indhago kale sadaqad soo bixiyaan ayaa maanta dawada xoogeeda iyo gurmadka ku hadlay waynu leenahay awoodii 9 bilood baynu ku dhalanay aqoontiina waynu leenahay dalkiina waynu leenahay nacasnimadana haysa qaran ahaan waxaan qabaa meelaheena muhiimka inaynu u jeedsano oo aynu ka baxno sanimka aynu nahay oo isku tashanaan qaba taa fariintaana qaranku dhammaan diraya dhalinyaro iyo da'weyn iyo da'yarbana waa waajibna saaran aad iyo aad waa mahadsantihiin assalaamu calaykum